بسم الله الرحمن الرحيم ومركله يا معالي سليمان حسن ديريه يا عشرتني انجليش اونلاين كاها gaar ahaan qaybtii elementary-ga ahaa ee ardayda looga dhisay hadalka qorista akhriska iyo grammarka ee idinkaga imanayay kulliyadda Dal Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa waa macallin Salmaan Xasan Diiriyo mar kale idin leh casharka subscribe gare like saar share na u samee fadlan si ay dad badan macluumaad uga helaan adigana aad xog walba ula socoto ee ka imanaysa kulliyadda Dal Professional College waxa inoo socdo gabagaba marayay casharadeenii elementary-ga ahaa waxaynu maraynaa page-keenii afar iyo kontonaad page 54 page-ka afar iyo kontonaad dialogue wada hadalkeenuna wuxuu ahaa 21 kii kow iyo labaatanaad maanta casharku waxaad moodaa inuu yara baaxad yeelanayo maxaa yeelay waxa loo sii dhawaanayaa qaybihii kale loo dhawaanayaa sidaas darteed uu yara ballaarnaan doonaa It gives me waxay isiinaysaa a great pleasure farxad aad u weyn great waa weyn pleasure waa farxad It gives me waxay isiinaysaa a great pleasure farxad aad u weyn to stand inaan istaago in front of the students ardayda hortooda and the teachers iyo macallimiinta It gives me waxay isiinaysaa a great pleasure farxad aad u weyn to stand inaan istaago in front of the students ardayda hortooda and the teachers iyo macallimiintaba kii kale wuxuu yiri I am also aniguna sidoo kale very happy aad baan ugu faraxsanahay to show inaan ka muujiyo my face wajigayga in front of my classmates ardayda aan isku class ka nahay hortooda classmates waa isku class an iyo my schoolmates kuwa aan isku school ka nahay classmates schoolmates housemates waa isku guri workmates waa isku shaqo okay mates waa wixii aad qofka wadaagtaan marka in front of my classmates ardayda aan isku class ka nahay hortooda and my schoolmates iyo kuwa aan isku school ka nahay Okay, wuxuu yiri after that inta kadib hadalaad wada markaad rabto dhan kale inaad uga baxdo maxaad isticmaalaysaa after that inta kadib what maxayba can we an awoodnaa focus on inaynu diiradda saarno after that inta kadib what can we maxaynu awoodnaa focus on inaynu diiradda saarno what can we focus on the ball kubaddu is with you adiga wata The ball is with you kubadda adiga wata waa phrase waxa laga wadaa arrinku waa dhankaaga adaa talada ku dhiibaya The ball is with you qofka marka leedahay adaan talada ku dhiibaya waxa leedahay the ball is with you mesela qofka ku yimid wuxuu kiiriniyo maxaa cunaa hadaa tira the ball is with you arrinku waa xagaaga go'aanka adaa leewa Do you agree with me ma igu raacsan tahay If we talk about haddaynu ka wada hadalno if we talk about haddaynu ka wada hadalno our country wadankeena Do you agree with me ma igu raacsan tahay if we talk about haddaynu ka wada hadalno our country wadankeena Why not maxaan kugu raacsanaan waaye Why not hore u soo baranay Why not maxaan kugu raacsanaan waaye I agree with you waan kugu raacsanahay I agree with you waan kugu raacsanahay To ask you haddaan ku weydiiyo my first question su'aashayda ugu horeysa first To ask you haddaan ku weydiiyo my first question su'aashayda ugu horeysa how many regions gobol does your country ayuu wadankaagu consist of ka kooban yahay To ask you haddaan ku weydiiyo my first question su'aashayda ugu horeysa how many regions intee gobol does your country ayuu wadankaagu consist of ka kooban yahay To answer haddii aan ka jawaabo your question su'aashaada To answer haddii aan ka jawaabo your question su'aashaada my country wadankaygu consists of wuxuu ka kooban yahay more regions gobollo badan
tell me ii sheeg the exact number tirada saxda ah tell me ii sheeg the exact number tirada saxda ah haddii ay dhacdo casharka inaad ka arki weydo videoga buuggu kugu qoran yahay buugga ayaad la soconaysaa okay aan mar kale ku celiyo page 54 page-ka 4 dialogue 21 dialogue 22 it gives me waxay isiinaysaa a great pleasure farxad aad u weyn to stand inaan istaago in front of the students ardayda hortooda and the teachers iyo macallimiintaba mar kale aan ku celiyo halka it gives me waxay isiinaysaa a great pleasure farxad aad u weyn pleasure waa farxad to stand inaan istaago in front of the students ardayda hortooda in front of waa horay kasoo horjeedka in front of the students ardayda hortooda and the teachers iyo macallimiintaba kii kale wuxuu yidhi I am also very happy I am also very happy anigu xitaa waxaan aad ugu faraxsanahay I am also very happy anigu xitaa waxaan aad ugu faraxsanahay to show inaan muujiyo my face wejigayga in front of kana muujiyo hortooda my classmates ardayda aan isku kalaaska nahay my classmates ardayda aan isku kalaaska nahay and my schoolmates iyo ardayda aan isku iskuulka nahay housemates isku guri roommates isku qol workmates isku shaqo villagemates isku xaafad okay wixii aad isku meel ku wada joogtaan loo isticmaalaa okay wuxuu yidhi after that intaa kadib what maxay baan can we awoodnaa focus on inaynu diiradda saarno after that intaa kadib what can we maxaynu awoodnaa focus on inaynu diiradda saarno the ball kubaddu is with you adigaa wata ama arrinku waa xaggaaga adigaan talada kuu dhiibaya markaad leedahay the ball is with you arrinku waa xaggaaga waxaa jira kelmado idiom ah ama phrase oo sarbeeb ah waxbay ka hadlayaan laakiin ujeeddo kale laga leeyahay idiom aa la yidhaahdaa way isticmaalaan ingiriiska the ball is with you arrinku waa xaggaaga do you agree with me ma igu raacsan tahay if we talk about haddaynu ka wada hadalno our country waddankeena do you agree with me ma igu raacsan tahay if we talk about haddaynu ka wada hadalno our country waddankeena why not maxaan kuugu raacsanaan waay why not maxaan kuugu raacsanaan waay I agree with you waan kugu raacsanahay I agree with you waan kugu raacsanahay to ask you haddaan ku weydiiyo my first question su-aashayda ugu horeysa how many regions intee gobol does your country ayuu waddankaagu consist of ka kooban yahay to ask you haddaan ku weydiiyo my first question su-aashayda ugu horeysa how many regions intee gobol does your country ayuu waddankaagu consist of ka kooban yahay to answer haddii aan ka jawaabo your question su-aashaada my country waddankaygu consists of wuxuu ka kooban yahay my country waddankaygu consists of wuxuu ka kooban yahay more regions gobollo badan to answer haddii aan ka jawaabo your question su-aashaada my country waddankaygu consists of wuxuu ka kooban yahay more regions gobollo badan tell me ii sheeg tell me ii sheeg the exact number tirada saxda ah tell me ii sheeg the exact number tirada saxda ah waxaan u malaynayaa casharka in la fahmay haddii muuqaalku aanu si fiican kuugu muuqan waxaad samaysaa buugga kala soco casharka ku qor buuggaaga si aad u fahanto waxaan maraynaa gebagabadii qaybtii elementaryga ahayd waxaynu u gudbi doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo qaybtii intermediate-ka ahaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waa macalin saleebaan xasan diiriye oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu